بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم دمانتين شعبك الصوماليات ميل walba aad dunida ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamij maantay aan isleeyahay way mudan tahay in laga hadlo magacaygu Cabduqaadir halka aad nagala socotaan waa Beledweyne City fadlan horta waxaan ka codsanaynaa dadka hadalkan ku socdo inaad gaarsiiso share gareyso gurigooda iyo goobtooda shaqada aad ugu geysid maanta waxaan rabaa inaan laba qodob aan ku soo qaadano barnaamijkan labada qodob waxay kala yihiin in xildhibaan lagu sheegay hadal uu ka soo yeeray jariimo ku ah qayb ka mid ah bulshada Soomaaliyeed garatay in ay ayagu wax iska celshaan nin xildhibaan sheeganaya oo ka hadlay sida uga hadlayna aad arki doontiin iyo hadallada gafka ee uu bulshadaas u geystay iyo sidoo kale qayb ka midana waxaan ku soo qaadanaynaa qodobka social media hadda aad u wareegayo oo shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed la rabo si indirect in la isaga horkeeno ku soo dhawaada mar labaad siina share gareeya barnaamijku hadduu ku soo gaaro waa inaad sii share gareysaa codsina weyn waxaan rabnaa waxaan ku hormaraynaa horta qodobka jinsiyadda oo laga hadlayo oo la leeyahay Soomaaliya qaniis baa la soo saxiixay islaan la kufsaday baa la soo saxiixay ilmo la kufsaday adduunyo siyaasadda ku hoos jirta shakhsiyan aniga waa dareemi karaa madaxda dawladda Soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa inay il gaara ku eegaan dadiyowga wada barnaamijkan iyo waxyaabaha ay ka damacsan yihiin xeerkaas waxaa la sheegay inay ku jiraan qayb ka mid ah la yiri ragga isku taga dumarka isku taga waxaan loo joogin oo nacaladuba ku dhacday ayaa ummadii lagu jahwareerinayaa waxaa muhiima marka madaxda Soomaaliyeed inay position cad ka istaagaan arrinkaas yiraahdiin maba ahanba maalintii laga doodi lahaa sida aniga fahamkaygu yahay mana ahan maalintii laga doodi lahaa waayo dalku wuxuu ku jiraa dagaal argagixiso iyo ummadii Soomaaliyeed ayaa dagaalamayo ninba garashadiisa kuwana intay soo dhaqaaqeen ayay waxay la soo shir tageen aan isleeyahay waa wakiilo shabaab ugu jiro dawladda xeerkan waa sidaan dawladdu qaladay soo saxiixday kuwana waxay leeyihiin waa baas gareynaynaa waa ku indhacadiin waxay rabaan inay wax qaldan oo loo jeedo oo si caadi ah loogu jeedo inay qaldan yihiin ay rabaan inay shacabka intay afduubaan ay marsiyaan ma marsi kartiin mana marayso laakiin qodobkaas waxaan isleeyahay maalinteed maantay ma ahana dawladdu il gaar ah ku fiirso dadka wada iyo dadka ka doodaya intaba qodobkaas waxaan rabaa in dawladdu ay ayadu la wareegto mas'uuliyadda qaabkii loola dhaqmi lahaa khaniis haddii la soo qabto tusaale ahaan nin khaniis ah oo nin kale maaragtay wax ka dayay subxaanallah waa dil qofka wax dilo ka sii daran yahay sababtoo waa fidno mucjiso oo diin la'aan oo ummadii dhex keenay kaas marka waa in la dil waayo macna kale oo ummadda ku soo kordhinaa male waa qodobka kale ilmo yar la kufsaday iyo islaana la kufsaday iyo qodobka ahna waxaan leeyahay dawladdu asagane waxaan isleeyahay xilligan maamul dhan oo dawladeed oo soo jiray ilaa iyo burburkii ka soo kala soo meelba mar qodobba mar la toosinayay musbaarba mar lagu mudayay meel yacni waxaan isleeyahay xeerar meel waa weeyaan xeerka meesha uga yaalna si ku meel gaar ah loo soo isticmaalo hadday tahay dil toogasho iyo hadday tahay ciqaabka kaleeto oo dilka ka fudud hadday tahay aniga waxaan isleeyahay nin kasta oo jinsi wax ah oo qaldan adeegsada waxaan isleeyahay dil toogasho ah ama naag kasta kuwa saqajaamiin oo naagaha soo baxayna oo arkayo meelaha wareega ayaga laftirkiisu way jiraan sidaa darteed wixii jinsi iyo ku saabsan sharci dawladeed iyo ummad lagu dhaqi doono wixii ah waxaan isleeyahay dawladdu dad khubaro ah u saarto iyo culummo isla jira si
aanay qolqolatooyin shacabkii iyo dowladdiisi la isaga horkeeno jaanis loo siiyo shabaab oo aayado inta soo qaato aan samaynayn. hadda aayaddu waxay ka hadlayso waxay ahaynay samaynayaan. aayaddu waxay sheegayso qaabka u hadlayso iyo qaabka ay maaragtay xukunkeedu yahay qaabaan ahaynay u adeegsanayaan. taasi waa taas. waxaan rabaa inaan nin xildhibaan lagu sheegay generaal ne u ahaa oo ka dhigay ninka la yiraahdo ii sheegtay Farmaajo. generaalnimadu horta maxay tahay? dadka Soomaaliyeed anigu ma aqaan, burburkii kadib ayaan anagoo inteena badan horta soo garatay burburkii. laakiin ka hor wixii ahaa waa documenti waay, waa qoran yihiin, waa yaaleen ayadoo documenti ah ayay yaaleen. generaal, darajada generaal loo yaqaano waxay u baahan tahay darajooyin badan inaad soo baasgarayso kadib aad gaari kartaa darajadaas. waayahay akhlaaqda kowka ah, geesinimada ku xigta, waa isdaba yaalaan. waxaan isleenahay marka intiiba si indhalaanaho intuu uga wareegtay oo ninkaan isku xisbiyaan nahay waxbaan isla wadnaa intuu yiri Farmaajo isaga magacaabay. waa intan ka fahmay ninkan. bal dhageysta waxa uu ku hadlaya ninkan, dhageysta. ya dagaalkan waa kii la isku baranayay. dadaan waxba hayn ayaa bannaanka ay soo baxaan oo dadaan tiro badnayn ama micno badan ay soo bandhigaan, gadaalna iska mariyaan awooddii iyo tayadii iyo tiradii dawladdii iyo ciidamadii kumaadooska ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayay waxay leeyihiin annagaa wax tarno, dadow hebel iyo gobol hebelna wax tiri maayaan. idinku filan saan is leeyahay ninkan waxa uu gafay dadka dowladda Soomaaliyeed u kaalmaynaya, garab istaagay inay la dagaalamaan ay gobolkoodii soo xoreystaan, u istaagay 24 saacne rag cadcad wiilal cadcad god lagu gurayo. ayuu wuxuu leeyahay dadan micno badan lahayn oo waxba haysan oo baaba ah oo yacni si liidan ayuu u hadlay. waxaan leeyahay hadday nimankaasu niman liidan yihiin oo waxba haysan oo baaba ah haddii ay yihiin, waxay soo xoreeyeen 3500 oo kilomitir oo isku wareega. waxay tageen gobolka Shabeellada Dhexe ase qayb dhan ka xoreeyeen. oo maalin dhaweed waxay ka dhacay ceel dheere waa la ogaa, shacabka Soomaaliyeed ana marqaati ka ah. waxay ka dhacay shacabka Soomaaliyeed ayaa marqaati ka ah. dowladda Soomaaliyeed iyo ciidamada qalabka sidane hal cid oo u gaftay ama wax dhibaato ayaga ku ah ama dowladnimada wax u dhibayo dadkaas kama soo yeerin. laakiin cudur baa ka muuqda. cudurka ku hayane waa dareemi karaa, anoo shakhsiya anigu waa dareemi karaa. kolley nin kasta oo Soomaaliya ama gabar kasta oo Soomaaliyane aniga igama aqli liitaan, way dareemi karaan xanuunku meeshu ka hayo. laakiin waxaan ku leeyahay haddii adiga xildhibaan qola kuu soo dooratay oo federaalka lagu soo dirsaday, xildhibaannimada waxaad ka fahamtay si qaldan ayaad u fahamtay. xildhibaan waa kan shacabka u dooda si guud mas'uuliyad, maadaama uu ka mid yahay shakhsigu ama qofku markuu xildhibaan noqdo wuxuu ka mid noqonayaa golaha sharci dejinta dalka Soomaaliya. not inaad tuuladaad ka timiday oo lagaa soo doortay inaad xildhibaan keliya u tahay maaha. inaad bulshadii marka aad sharcigii aad ku yacni kugu aaminay inaad maanta qayb ka mida aad tiraadid dadan micno badan lahayn aad ku tilmaantood aflagaado u geysato, taas kolley tuuladaad ka timiday dhibaato ku tahay. wax adiga ku dhaamo lama waayne. waxaan is leeyahay in aad si indha sarcaada ku soo baxday. taasi waa qodob. qodobka labaad oo isla baarlamaanka ah, baarlamaanku wuxuu leeyahay guddi anshax ayuu leeyahay. waxaan baaq u diraynaa golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya in ay ninkan hadallada ku hadlay oo qayb yaroo ka mid ah aan hadda ka soo qaadanay inaad dib u dhageysataan, kadibna aad la xisaabtantaan. haddaad sidaas aad samey waysaan marka maxaa dhacaya? waxaa dhacaya in si shakhsiya asiga loola xisaabtamo.
ama laga soo qaado hadalkiisa waxaan macno badan balahaynba labada qodob ay mid tegaysaa waxaan leenahay madaxweyne xasan sheekh aad iyo aad u mahadsan tahay kuwaas laakiin intuu xildhibaanna yahay ciidankiina uu wax ka hogaaminayo caadifada noocaas dadka ku jirto wali waxbaa dhiman dib ugu noqo intaasna waa iska dardaaran guud tuuladii uu ka soo jeedo ninka la yiraahdo Yaasiin Faray tuulada uu ka soo jeedo hadda ayaga haysta oo maamula shabaab ayaa waxa ka ah wasiir ayaga dawladii ka ah ayaga maamula ayaga gabdhaha iyo dumarka iyo odayga iyo dhalinyarada ku abuse garaya oo dhibaato ugu geysta maanta inuu dad kale qabiil kale oo soo nadiifsaday dhulkiisa asaga dhulkiisa ku soo raacday oo u gafo waxa kalifayo waa iska naqan waa iska caadifad yani nimankaas aan ka daba tag dadkaas wuxuu uga dhigayaa dhiirigelin uma gafayno dadkan reer Shabeellada Dhexe wadadan dirisnahay walaalnahay wax badan oo aan ummadaha kale ka dhaxayno naga dhaxeeyaan dadku markay diris yihiin waxay isaga dhow yihiin ama ay isaga xaq badan yihiin dad yowga kale ee ku nool meelaha kale ama gobolada kale ee Soomaaliya markaad u fiiriso aniga baydhabo kale waxa iiga xaq dhow reer Xudur ayaa iiga xaq dhow reer Muqdisho kale waxa iiga xaq dhow reer Jowhar reer Dhuusamareeb waxa iiga xaq dhow magaalada la yiraahdo Guriceel ayaa iiga xaq dhow intiiba intuu iska dhiga tiray dhulkiisii aanu qayb ka mid ah u xoreynayo ayuu maanta aflagaada kale u la soo jeestay dowladda Soomaaliya aad ay u mahadsan tahay ciidamada kala gedisan ee xoogga dalka Soomaaliya aad iyo aad ay u mahadsan yihiin madaxda qaranku waa mahadsan yihiin laakiin neecdaas oo kale markay meelaha timaado waxaan u hadlaynaa sida u hadlo kale afkaada hagaaji baan ku leenahay haddii aad afkaas oo kale mar kale ku hadashidne stay tagaysaa waxa afkeena ku jira inaad ka soo bixiso ha ku qasbin ma doonayno inaan dad walaala u gafno laakiin waxaan leenahay dadkan diris baa la yahay sabab kasta oo dhacda neecdaas oo kale tan ma kala geey karto oo dad walaala ah oo diris oo isla dhashay oo waligood isla deganaa laakiin waxaan leenahay tuuladii ninka laga soo diray war nin dhaama ninkan federaalka ku soo darsada aad iyo aad u mahadsantiin wassalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.